السلام عليكم أصحابتي يوتيوبك soo dhawaada maanta waxaan sameysanaynaa cake ama doolasho qof walba sida uu yaqaano soo dhawaada in badan meeshaan waxaan ku haysanaa baaquli waxaan kusoo shubanay 3 xabo ukun ah ukunta ayaan si fiican soo xurbinaynaa اوكي si fiican ka soo xurbinay waa kaaya ukuntii dhan si fiican ay soo xurbisantay sokor ku soo kor daranay hal bakeeri oo sokor ah qiyaasta keega aan sameeynayna waa 2 bakeeri oo bur ah iyo galaas oo koob sokor ah soo markaa cusbo iyo bur ayaan isku soo daranay burkii cusbaan si fiican isku dhex gelinay waxaan kula soo darsanay bakin hal qaando ah intaas si fiican isku dhex gelinayna kadib waxaan soo laabanaynaa ukunteeni iyo sokortii aan isku soo qasanaday caano ayaan korka uga soo shubanay qiyaasta caanaha in kugu filan oo yar biyo zaid inuu doolashaha naga noqdo marabno qastaankiisa soo marka waxaan ku soo darsanaynaa wax yar oo qarfo tuman ah heel tuman ah soo markaa intaa kadib burkeeni ayaan ku soo kor darsan doonaa burkii iyo cusbadii iyo bakinkaas ku soo dhex qaseynay soo markaa si fiican ayaan ugu isticmaaleynaa baashaan hadaadan rabin mashiinka ayaa geysan kartaa oo lagu qaso doolashaha soo markii intaa kadib weelka ku shuban lahaynaa soo diyaarsanay oo saliidaan hoos ka soo marin weelka soo intaa kadib waxaan inoo qasnaa aan ku soo shubanaynaa kadib foornada ayaan gashanay waa ka xoogaa noo soo buufsamay kadib foornada gashanay oo maasha Allah sidaan ayuu noogu soo baxay doolashaheeni waan jaleec aadna uu caraf badan yahay aninkana ka faa'iideysan doontiin ayaa rajeynayaa asxaabteeda soo dhawaada subscribe noo saara like tana dhiirigelin ayuu inoo tahay aad u mahadsantihiin